السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسنا أصحابتي قاليها من البجوكتين waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kooban aan kaga hadli doono tiriidada maanta aan qaadanay. Runtaa waxay tahay suuqani forex waxa uu baahan yahay dulqaad joogto ah iyo inaad sabr leedahay. Waxaad arkaydaa inta badan asxaabta in ay tiriidiya qaldan ama tiriidiya aasan ruulka in badan waafaqin inay qaataan ama ku degdegaan. Tiriidka xilligu baxayo waxay noqon kartaa isbuuca bilowgii, isbuuca dhamaadkii, isbuuc dhexdhexdii. Marka tiriid xun intaad qaadan lahayd waxaa ku dhaanta tiriid la'aan. Haddaba shalay oo isniin ay ahayd anigu ma aanan tiriid gareen oo suuqu wax inta badan ma uusan lahayn. Hase yeeshee maanta Talaado ah ayaa intiri ka helnay ruulkii inta badan na wada waafaqay. Asxaabta mar walba waxaan ugula taliyaa oo aan Telegramka u soo dhigaa waxay tahay in suuqani uu baahan yahay xasilooni joogto ah. Inta badan waxaa jira dadka inta badan inay daawadaan muuqaalo aad u dhaadheer ay ku daalayaan, ku caajisayaan. taa inta badan waxaa ka fiican inay helaan muuqaalo kooban misana ay ku caajisaynin ee suuqa boontigiisa ama muhiimadda lagala hadlayo ay fahmi karaan la siiyo. Marka asxaabta waxaan idin leeyahay suuqani maanta kuma eko, biri kuma eko, biri dambana kuma sii eko. Adiga unbaa waxaa lagaga baahan yahay inaad isxakamaysid. Waayo haddii maanta tiriid qaldan ama tiriid inta badan ruulka waafaqsan inaad qaadatid oo asal kaaga dhaco ama ku hareer maro waxaad ka baqanaysaa tiriidka kale ee saxan. Marka inta badan dulqaad samee, suuqani asiga ayaa imaan doona halkii loogu talagalay. Aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.